soo dhowaada asxaabaha sharafta leh dhammaantood. Maalin kasta iyo xilli kastaba waxaan mararka qaarkood ama habeenada iyo maalintaba wadaagi karnaa inaanu soo duubno fiidiyoyo iyo codadkooda aan kaga hadlayno macdanta. Laakiin maantay waxaan idinla wadaagayaa xaqiiqooyin badan oo ina ka qarsoon. xaqiiqooyinkaas waxaa ka mid ah kow, horta qof kasta oo macdanta iyo khayraadka ku dhex jira inta badan khayraadka uu ku dhex jiro dee wuu garanayaa inuu raadiyo, inuu baaro, inuu waqti ku bixiyo. Laakiin macdan baarista 4 shay oo waxaa jira muhiim ah oo qofka doonaya 4taas uusan dhaafi karin. Macdanta horta waxay u baahan tahay 4 dad bay u baahan tahay. Waxayna u baahan tahay 4 qalab. Waxayna u baahan tahay 3 dhaqaale. Intaa markuu qofku dhex maro oo ka soo gudbo waxay u baahan tahay 4 xiriir bay u baahan tahay. Intaasaa la isu keenayaa. Intaasaa marka waxaa ka dhalanaya macdantii in guul laga gaaro. Horta macdanta 4 qof bay u baahan tahay. Marka koowaad horta waxay u baahan tahay qof macdanta jecel inuu ka shaqeeyo aad u jecel. Waxay u baahan tahay qof dalyaqaan ah oo dhulka macdantu taalo ama dhulka ku habboon haddii la tilmaamo dhulka garanayo dhulka mara. Waxay u baahan tahay qof maalgeliya. Waxay u baahan tahay qof aqoon-yahan ah oo dadka shaqeeya. 4ta aan u kala dhigay waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin. Mid walbaaba wuxuu leeyahay xirfad gooniya ama wax gooniya. Midka haya aqoontaas haya dadkii buu hagayaa meesha ku habboonayd wixii ku habboonaa wax kasta sida loo soo saarayo, sida wax looga faa'iideeyo, sida dhaqaalihii loo dhandaminayo ayuu caddaynayaa. Kaasi waa kaas. Midka shaqada jecel waa midka dhiirigelinta shaqada u ah. Mar walbana inuu shaqeeyo ayuu rabaa oo hawsha qabto. Waxay u baahan tahay qof maalgeliya. Qofka maalgeliyaha waa qofka kharashkii shaqadan lagu kala wadi lahaa oo dhan dhiibaya. Waxay u baahan tahay qof dalyaqaan ah. Qof dhulkii noocii dhul in la baaro ama la rabay in laga shaqeeyo garanaya oo markiiba ciddii shaqeyn lahayd geyn kara. 4taas marka ay isu yimaadaan shaqadu si step-kaba ku bilaabanaysaa. Step-ka shaqadu waxay ka bilaabanaysaa qofka shaqada jecel. Qofkaasaa shaqada ololeynaya. Waxaa shaqadaas hadduu doono qofka laftirkiisu qof dhaqaale haysta oo wax dabiran kara buu noqon karaa. 2 waxa loo baahanayaa marka dhaqaalihii baa la helayaa. 3 marka waxa loo baahanayaa qofkii aqoonta lahaa. Qofka aqoonta leh baa la rabaa inuu qalabka lagu shaqeynayo dejiyo. Waxaa la rabaa inuu maaragtay ka shaqaysiiyo system-ku soo socon lahaa meesha ku habboon xilliga ku habboon. Asaguna dee waa inuu dhaqaale helo. Hadduusan dhaqaale helin ma shaqeyn karo qofku. Naftu intii habbo wax dheefto bay wax laga dheefaa. Waa in inta la isla fahmaa. Anugu haddaan shaqo qof ii dirsado lacag fiican hadduu ii dhiibo dee aniguna qalbi fiican baan u dhiibayaa. Laakiin hadduu xoogaa iga jaakiro annagana iska jaakira waa iska dhici kartaa. Waana wax aadmiga ku abuuran macnaha marka aanu sheekaysanayno. Hadda inagu halkaan dad iska sheekaysanayo macdanta ka wada hadlaya baan nahay. Marka xaqiiqooyin dadban baan isu dhiibi karnaa mararka qaar. Hawo arkina wax culus. Laakiin waa xaqiiqooyin aad wax ku jaangoysanaysaan idinka laftirkiina. Xaqiiqada dhabta markuu qofku ogaado wuxuu go'aansadaa waxa dhabta inuu qorshaha dhabka ka gaaro. Waxyaalaha kale oo jira waxaa ka mid ah loo baahan yahay marka qofkaas injineerka ah wuxuu dejinayaa sida aan sheegnay qalabka lagu shaqeyn lahaa, position-ka ugu habboon ee laga shaqeynayo, xilliga ugu habboon ee la shaqeynayo. Intaa markuu dejiyo
waxaa la rabaa qalabka lagu shaqaynayo iyo systemka inuu asagu dalbo oo asagu keeno. taasi waxay fududeynaysaa in shaqadu ay dhaqaaq u heli karto. laakiin wixii maalgelin ah waxaa laga rabaa ciddii haysatay shaqada qabsan lahayd inay wixii maalgelin la timaado. halkaa marka waxaa ka baxaya qorshihii qayb ka mid ah. Baleemka labaad baa loo gudbayaa marka. Baleemka labaad waxaa loo gudbayaa intaa waa laga yimid ma ogtahay, waxaa la sameynayaa positionkii shaqada loo baahan yahay. waxaa markaa loo baahanayaa qofkii dhaqaalaha markii la helay, qofkii injineerka ahaa la helay, qofkii dhulka kala yaqaanay, meesha ku habboon yaqaanay, kadibna meesha ku habboon iyo sidii lagu tagi lahaa ayaa qorshaheeda la dejinayaa. shaqaduna meesha ugu habboon bay ka bilaabanaysaa. muddada shaqadu waa muddo cayiman, lama rabo waa shaqaynaya shaqadaasan doonaya waxaasan raadinaya keliya. waa muddo cayiman muddada shaqada la shaqaynaya. kharashka loogu talagalay waxaa dejinaya qofkan injineerka shaqada ah ama macdanta injineerkeeda baa dejinaya. oo kharashka intaas markii la marayo intaasaa la khasaari karaa, intaasaa la faa'iidi karaa, intaa ka badan khasaare laguma dhumin karo. saambalka intaa haddii laga helo meesha laga shaqayn karaa, haddii saambalka intaa laga waayo waa la iska daynayaa. waxaa laga rabaa qofka shaqada injineerkeeda ah inuu dejiyo. waxyaalaha la rabo dadka kale inay shaqeeyaan oo muruqooda ay dee wax ku lisaan baa la rabaa. muddada la shaqaynaya waa cayiman tahay. qofku markuu qandaraas iyo shaqo aado ugu badnaan bil iyo 15 beri waa inuu natiijo keenaa. hadduu bil iyo 15 beri natiijo ka keeni waayo waa inuu sayidka isaga laabtaa ama sayidka laga guuraa, boosasha kale loo wareegaa. waxa la doonayo maxay yihiin? waa in la isla yaqaanaa. tirsiga intee shay la doonayo waa in la isla yaqaanaa. qofka soo shaqaynaya shay kasta aasaaraha uu ku fahmi karo waa in la fahansiiyaa. muddada shaqadu soconayso waa in la isla yaqaanaa. maalin kasta shaqada timeka dadka shaqaynaya ay shaqaynayaan waa inuu time la isla dejiyay. haddii kale shaqadu isku dhex qaldamaysaa, qorshe la'aan bay noqonaysaa, waxna lagama faa'iidi karo. waxyaalaha kale oo loo baahan yahay waxaa ka mid ah kala dambeyn in loo helo. hadday tiimku kala dambeyn waayaan, cidda kala dambeynta diida waa in laga kala usi karaa tiimka. hataa hadduu maalgelin ku leeyahay waa in loo celin karaa oo go'aan cad laga qaadan karaa. waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalaha jaangooyinta ku yeelanaya systemka. anigu mar walbaba waxaan bixiyaa talooyin. waxaana halkaan dhisaynay systemyo badan. xataa system yar oo hadda toddobaadkan aanu soo kordhinay markaan dadka caqabadahooda aragno. waxaa jira qofku inuu 5 beri tiimkeenna ka mid ahaan karo talagelinta iyo tusaalooyinka, oo 5 beri laga qaado lacag $15. sidoo kalena uu 3 beri naga mid ahaan karo isagoo $10 bixinaya markaas ka mid noqoshada tiimka intaas 3 dayskaas. waxaa jira qorshayaal kale oo aanu soo kordhinay. waxaa jira xogteena hore oo daaraan.net ku jirta oo sida ardayda diiwaangelinteedii iyo qaybtii buugga macdanta koowaad iibintiisii. buug labaadna waa soo baxay. subscribe iyo share iyo like barnaamijka saara. waa mahadsan, soo dhawaada.